marka ugu horeysa waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan sidoo gaar ah u salaamayaa bulshada reer Puntland gudaha iyo dibadba. sida aad la socoteen waxaa waayadan ciidamada difaaca Puntland ay ku jireen howlgal ay uga ciribtirayaan argagixisada Daacish buuraha silsiladda Golis ee Calmiskaad. sida aad la wada socoteen howlgalkani wuxuu bilowday 26kii bishii 12aad kaas oo loogu magac daray howlgalka Hillaac ee safaynta argagixisada Puntland. waxa uu runtii ahaa howlgal si wanaagsan loo qorsheeyay, diyaar garow fiican laga yeeshay, dhammaan qaybaha uu u baahan yahay si uu howlgalkaas u hirgalo laga taxadiray. haddii aan lahayd ciidamada, haddii aan lahayd gudiyada taakulada, haddii aan lahayd howlwadeennada caafimaadka, haddii aan lahayd bulshada iyo baraarujinteeda iyo waxsheegeeda, iyo dhammaan hay-adaha dawladda ee kala duwan inay qaybta qolo walba ay ku leedahay ka qaataan. howlgalkaas oo 26kii wejigiisii koowaad ee militariga ahaa oo bilowday magaalada Darjaalle uu ka bilowday, waxa uu soo gabagaboobay wejiga koowaad 28kii bishii koowaad. waxaa sidoo kale dawladda Puntland ay ku dhawaaqday 30kii bishii koowaad in wejiga labaad ee howlgalkaas ee militariga ahaa ee safaynta ah uu bilowdo, isagoo ka bilowday wejiga labaad magaalada Turmasaale. waxa uu maanta oo 27kii bishii labaad ah uu ku soo idlaaday wejigiisii labaad magaalada Dassaan oo ahayd xarunta ay ka hogaaminaysay Daacish geeska Afrika iyo dhammaan howlgallada caalamka ay ka furisay isqarxinta ah. sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dawladaha nagala shaqeynaya ay sheegeen, Dassaan iyo Daadaar iyo Shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha. waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey waqooyiga Ameerika, qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya iyo Carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka. madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhigeedu uu ahaa halka. sida duqeyntii Mareykanka ee labada mar ahayd lagu cadeeyay warbixinta Mareykanka inay halka ku beegsadeen dadkii ka shaqeyn jiray inay soo ururiyaan dadka Mareykanka howlgallada iyo Yurub ka geysta. Calmiskaad ma ahayn khatar Puntland oo kaliya, ma ahayn khatar Soomaaliyeed oo kaliya, ma ahayn khatar qaaradda Afrika oo kaliya, waxay ahayd khatar caalami ah oo runtii u sahashay fursadda dalkeen uu ku jiro iyo dalka aan dariska nahay Yemen burburka ka jira iyo dagaalada ka soo cusboonaaday dhammaan geeska Afrika inay helaan marino ay uga gudbaan dalalkaas. waxayna ku talagaleen meel aan ishu arkayn oo runtii strategically adag, fursadna u haysata badda Hindiya iyo badda Cadmeedba iyo badda Carabta. halkaas inay muddo ku ururinayeen dhammaan dadka howlahaas maamula, sidoo kale dadka howlahaas fuliya. qorshaha laga hortagay wuxuu ahaa muddo aan badnayn oo dhowr bilood ah si ay u helaan shaqooyinka ay qabanayaan kuwa intaa ka badan inay ballaariyaan deegaanka ay gacanta ku hayaan, oo ujeedadu ahayd in guud ahaan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ay gacanta ku dhigaan. waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo Ilaahay mahadiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ay ugu talagaleen in magaalada Boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dawladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada. xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dawladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guuleysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato. Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana wuxuu nagu siiyay gacan, waan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawshaas baaxadda leh ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ay qabsatay. waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer Puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh, hadday tahay qorsheyn, hadday tahay howlgal iyo hadday tahay nafhurid isugu daray. sida quraankeenu qabo, shuhadadu ma dhiman, waa ay nool yihiin. ilaahay baan irsaaqaya inta ku shahiiday ilaahay lahaa oo u ballan qaaday inay jannada firdawsa galaan ayaan subxaanahu wa ta'aala aaminsannahay, waana malaynaynaa inay jannada galayaan.
inta ku dhaawacantay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu si dhaqso ah ugu booy gadho arrintaas runtii waxay muujisay dadka reer Puntland gudaha iyo dibadba inay noqdaan dad isku duuban dalkooda ilaashanaya cadowga iska dhicinaya qof walbana uu uga qayb qaatay meel kasta uu joogo intii karaakiisata kii adin uga qayb qaadanayay kii af uga qayb qaadanayay kii dhaqaale uga qayb qaadanayay kii tala iyo fikir uga qayb qaadanayay intaba waxaa la oran karaa dadka reer Puntland maanta arrintaas uma aysan kala harin iyo dadka Soomaaliyeed ee sama jecelka ah iyo dhammaan saaxiibada caalamiga ah ee khatartaasna la arkayay waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo dalalka sida tooska ah shaqadaas uga waday oo runtii ugu horeyso dalka Imaaraadka Carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka Mareykanka Itoobiya iyo Kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas uu miro dhali lahaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shaqada la qabanaya shaqo Soomaaliyeed baa shaqadaas Soomaali sida ay u dhisan tahay Puntland bay u igmatay inay deegaanada Puntland maamusho inay deegaanada Puntland ammaankeeda sugto dawladda iyo dadkeeduna waa ku mahadsan yihiin shaqadaas baaxadda ay qabteen aniga oo kala gureyn waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wajigii labaad uu soo gabagaboobay sidoo kale tan birito oo 28 bisha ah oo wajigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixisa ah oo Puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgalla ka sameynaysa ilaa laga dhamaynayo wajiyadaas way socon doonaan markuu mid dhamaado oo mid bilaabanaya dadweynaha waan u sheegi doonaa ilaa geeyiga Puntland oo dhan uu noqdo geey ka bannaan ka xor ah argagixisada oo dawladdiisa iyo dadkoodu ay maamulan doonaan waxaan rabaa iyadana inaan halka uga hambaleeyo ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada dawladaha xubnaha ka dawladda Soomaaliya ee sidaas oo kale iyagana howlgallada uga wada deegaanada kaleeto ee Soomaaliya dhamaanto meel kasta ay joogaan ciidamada Soomaaliyeed waxaan ugu hambaleynayaa shaqadaas waajibka ah sida ay u guteen nafurnimada ah sidoo kale inta dhimatay ee shahiiday ilaahay waxaan uga baryayaa jannada firdawsa inta dhaawacana waxaan uga baryayaa inuu ilaahay booga dhigo maamulada iyo dadka howlaha gacanta ku hayana waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu u fududeeyo hawshaas adag ee ay ku jiraan dabcan waa hawl qaran waa hawl bini'aadanimo waa hawl mas'uuliyadeed oo Soomaalinimo waa hawl u baahan in laga wada qayb qaato dadka Soomaaliyeedna u jeestaan cadawga dhabta ay leeyihiin waa argagixisada dalkooda iyo dadkooda ku soo dushay dabcan kama marna khilaafaadka iyo dhibaatooyinka dadkeena ka dhex jira oo fursadaas la oran karo annaga banaynay in dalkeena la haweysto in dalkeena dibadda looga soo duulo in dad cadow ah ay ka dhigaan dhul aan la lahayn oo dhulkii la helay sidii meelo badan adduunka loo oran jiray taariikhda ku dhulka Soomaaliyeed inuu noqdo dhul baylaha dadkiisa sabab ah waliba siyaasiyiintiisa waxgaradkiisa iyo dhaqankiisa ayaa saldhig u ah arrintaas waxaan rajeynayaa dadka Soomaaliyeed inay xisaabaadka dib u fiiriyaan dalkooda iyo dadkooda u naxaan mustaqbalkiisa ka shaqeeyaan waxyaabaha lahwiga ah ee waqtiga lagu dhumanayo in dib loo akhriyo oo dib loo saxay u baahan waxaan rabaa inaan u baaqo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dawladnimada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan baa leh meel kasta uu joogo dawladnimada Soomaaliyeed waxay ku dhismi kartaa wada hadal is afgarad iyo heshiis dhab ah madaxdu awood uma leh inay qorshaha siday rabaan iyagu u fuliyaan waxaan ku salaysnaa rabida dadka iyo sharciga runtii dawladda Puntland intaysan tallaabo qaadin waxay aad u ilaalisay midnimada dadka shaqadan inay tahay shaqada dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxay kala tashatay dhaqanka waxay kala tashatay culimada waxay kala tashatay ganacsatada waxay kala tashatay cid kasta oo dalkan saameyn ku leh hogaamin ku leh waxay u bandhigtay dadkeeda gudaha jooga waxay u bandhigtay dadkeeda dibadda jooga shaqada maanta socota shaqo xukuumadda maanta jirta kaliya ay leedahay maaha waa shaqo dawladda Puntland leedahay dawladda Puntland markii la leeyahay maaha xukuumadda maanta jirta waa dawladda oo dhan oo shacab iyo dhul iyo dad oo isku jira weey anagu hoggaankiisa baan nahay la doortay waxaan ku shaqeynayna waxa weeye waa sharciga iyo dastuurka iyo himilooyinka ummaddan ay leedahay reer Puntland taas ayaa qorshayaasha saldhig u ah waajibaadka inaan difaacno cadow ku soo duulay ka qabanno qorshe u sameeyno waa waajibaadkeena dastuuriga ah oo dadkeena naga sugayeen sidaas ay tahay waxa nagu xambaaray inaan anaga waajibkeena inaan gudanno waxaa mahaddeeda iska leh dadkii marka hore noo igmaday iyo dadka gacanta nagu siiyey inaan shaqada gudanno oo runtii dadka reer Puntland oo dhan ah waxaan rajeynayaa waajibka Soomaali naga saaranna inuu noqdo waajib dadka Soomaaliyeed oo dhan leeyihiin dadka madaxda u igmadaan ay gartaan waajibkan inuu yahay waajib loo dhiibtay dadkuna ay gacan ku siiyaan oo ay ka dhaafaan dhaleecaynta iyo niyad jabka madaxduna ay garato ammaanada sida ay u gudan lahayd si sharci ku dhisan inay noqoto oo dadkoodu raalli ka yahay arrintaas ma rabo inaan ku fogaado
laakiin waxaan dirayaa baaq in dadka Soomaaliyeed dalkii halis ugu jiro dalka Soomaaliyeed qorshayaal runtii iyo xogo waqtigeeda la soo bandhigi doono ayaan helnay oo khatar aad u weyn xambaarsan khaasatan Daacish qorshayaasha ay lahayd oo waqtigeeda aan la wadaagi doono dadka marka howlgal ku dhamaado waa qorshe runtii walaac gelin kara qofkii mas'uul ah khatarna gelin kara mustaqbalka Soomaaliya waa qorshe aan ku koobnayn dad Soomaaliyeed oo kaliya dad ajnabi ah oo gargixisata ah waa qorshe runtii aan rabin halka inaan ka faahfaahiyo oo khatartiisa leh oo u baahan in si mug leh looga fiirsado arrintaas dalkeenu inuu beelaha noqdo waxaa saldhig u ah khilaafaadka bulshada ku dhex jira iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka heshiiska lagu yahay waxaan ka digayaa mar labaad wax kasta oo bulshadeena kala kaxayn kara in madaxda Soomaaliyeed ka fogaato wax kasta oo isku soo dhaweyn karana inay waqtiga geliso Puntland waxay diyaar u tahay ku dhaqanka sharciga ilaalinta dastuurka Puntland iyo federaalka ah waxay diyaar u tahay dhammaan geeyo Soomaaliyeed waajibka ka saaran inay ka gudato iyadoo kaashanaysa ummadeeda guud ahaan waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqeynay ee magaalooyinka ku sugan ee aan furimaha lagula dagaalamay joogin taakulada ka qayb qaadanayay dadka lacag ka qaaday dadka gudbinayay iyaga ku soo degayay shirkadaha u furto ganacsatada ka dhigay qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyay dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka bixin cadeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa 7 bari gudahood cidii ku imaan weydo dawladdu tallaabo sharci ka qaadi doonta dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxa ku jira culimo waxa ku jirta ganacsato waxa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono 7daas bari waxaan ugu talagalnay annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena fursadaas inaan siino khaladka ilaahay baa khaldama ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dawladdiisu inay cafis fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadawga ay soo duulay 7daas bari cidii isku soo dhiibaysa dalalkooda ku noqonaysa isaga tagaysa fursad bay haystaan waan ognahay maanta ku jirta xaasas baa ku jira carruur bay keensadeen hadday maqlayaan uma doonayno inaan maxas iyo maata leyno ay isu soo dhiibaan dowladda Puntland haddii intaa dhici weydo waxaan rajaynayaa dowladda Puntland tallaabada ku habboon inay qaadato ciidamada waxaan halka fariyaa howlgalku biri laga bilaabo wajiga saddexaad oo qorshihiisu ay og yihiin saraakiisha hogaaminaysa inuu sidiisu u fulo inuu hakad yeelan inuu sidiisu u socdo bisha Ramadaan ee barakeysan inuu howlgalka sii socdo iyo bilaha ka dambeeyaba ilaa laga ciribtirayo Puntland ciidamadeedu har iyo habeen waa soo jeedaan shaqadoodu waxay noqon doontaa joogto dowladda Puntland joogto u dirta dadka reer Puntland gudaha dibadda garab istaagin waa inuu joogto ahaado hawshan loo istaagay waxaan rajaynayaa inay noogu soo ilaato si kulligeena wada farax gelisa oo waajibkeena noo horseeda inaan wada gudanay dalkeena iyo dadkeena ay ku noolaadaan nabad iyo deganaansho iyo xasilooni si horumarku u baraaro bulshadeenu ay u kobocdo dalkeena uu xasilooni u helo baaqayga ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan oran lahaa inta aanan waagu baryin oo aanan lagu maadsan xisaabaadka dib loo fiiriyo dib la isugu noqdo dalkan meel halis ku socda dadka mas'uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya dadka xilalka soo qabtay dadka wax garadka ay xilalka qaban doona mas'uuliyadda waa mas'uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxa maanta dalkeena beelaha ka dhigay dadka Soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan dib ha wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan colaadaha siyaasadaha ku salaysan colaadahaas oo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada waxaan tacsi gaar u dirayaa meelaha wili hadda dagaalada argagixisada iyo dhibaatada ka socoto anoona kala soocin kala magacaabay waxaan u rajaynayaa ciidamada kala duwan ee howlgallada ku jira inuu Ilaahay u fududeeyo inay ka hortagaan isku dayada iyo dhagarta lala maagaya dadka Soomaaliyeed waxaan dowladaha saaxiibka ay nahay ee gacanta naga siiya ee dhammaan kuwa Afrika haday tahay iyo kuwa kale ee caalamka qaybihiisa kale ee gacanta ka geysa la dagaalanka argagixisada waxaan rajaynayaa in la mideeyo howlgalladooda iyo qorshayaashooda runtii qorshe la isku dabariday